aad u jeedaan. haweenada ka mid ah hooyada ayaa waxay iga sheekaysay qiso aad iyo aad u cabsi badan oo ku dhacday ayeeyadii markii ay yareed. qisadani waxay ahayd ayeeyadii markii ay yareed waxay degnaayeen guri hoos mara webi. gurigaas haddii aad u baahantahay inaad deriskaaga aado ama aad ka gudubto waxaad isticmaalaysaa doon. maalin maalmaha ka mid ah ayeeyadii familkeeda waxay diyaarsadeen cunto, laakiin arrin la yaab leh ayaa mar walba dhacaysay. cuntadii markii la diyaariyo oo la saaro miiska cuntada, cuntadii waa la weyn jiray. cid familka ka mid ahna maysan cuni jirin. in muddo ayaan cabsidaas dareemaynay, ayaan la yaabaneen cuntada wax mar walba cuno. cuntadii la diyaariyana waa la weyn jiray. bil kadib arrintaas ayadoo jirto ayaa webigii meesha ka dhammaaday. ayeeyadii oo guriga iskaga soo socoto ayaa waxay aragtay arrin aad ugu naxday. waxay aragtay tiirar ka mid ah tiirarka guriga hoose oo yaalo meyd qof dhintay ah oona aad u barbararay. ayeeyadii hooyadeeda waxay ku fikirtay cuntadii la weyn jiray inuu mar walba qofkaasi cuni jiray, oona ahaa qofkii ayaga dhibi jiray. qofkaasi wixii dilay ma naqaano, laakiin wixii qofkaas dilay ayaa weli guriga joogo. muddo kadib webigii sidiis ayuu ku soo noqday, meydkiina webiga ayaa qaaday.